xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa waxa uu ka hadlay warar maalintii shalay ahayd soo baxay oo sheegayay in magaalada Hargeysa ay wada imanayaan ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya iyo madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Afhayeenka xisbigaasi Barqad Jaamac Xirsi oo warbaahinta la hadlay waxa uu madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay inuu shacabkiisa cafis ka dalbado isagoo dhanka kalena shacabka reer Soomaaliland ku bogaadiyay afhayeenku dareenkii ay maalintii shalay ahayd arrintaasi kaga falceliyeen. afhayeenka oo ka hadlaya arrintan waxa hadaladiisii ka mid ahaa waxaad ka warqabteen si guud labadii sano ee uu xilka hayay madaxweyne biix muuqaal kasto saxaafadu ka duubto iyo madal kasto uu ka hadlaba wuxuu ku maagayay Farmaajo. labadii habeen u dambeeyana waxay bulshada Soomaaliland baafinaysaa madaxweynahooda. qodobka 37aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland firqadiisa koowaad waxay dhigaysaa dalka mas'uuliyadiisa cidda haysa inay madaxweynaha iyo xukuumaddiisa tahay. sabab ummadda loogu jeediyo abi iyo dawladda Itoobiya ma taala maanta Soomaaliland. cidday tahay in ummadda soo hor istaagto oo bulshada ama dalka iyo dadkaba cafis weydiisataa waa madaxweynaha. waxaanu leenahay madaxweyne soo bax ummadaada soo hor istaag dalka iyo dadkaba cafis weydiiso. qodobka 129 waxa lagu dhaariyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland 2 sano ka hor. wuxuu ku dhaartay dalka iyo dadkaba inuu daacad u noqonayo, inuu sinaan iyo cadaalad dadka ku hagayo. mowqifka xisbiga wadani wuxuu markasta u hoggaansan yahay masiirka ummadda Soomaaliland. wuxuu tixgelinayaa qodobka 127 oo sheegaya qarannimada Soomaaliland iyo jiritaankeedu midaan gorgortan geli karayn inay tahay, midaanay qof qolol masiirka ummadda ayna ku goyn karayn inay tahay. ummadda Soomaaliland masiirkeeda ayuu xisbiga wadani markastaba ku shaqeynaya. 30 sanadood ayay Soomaaliland u silcaysay sidoo marun calankeedu dunida daafaheeda uga baban lahaa. waa mabaadiida xisbiga wadani taasina uu qabo iyo mowqifka qarannimada Soomaaliland uu xisbiga wadani ka taagay. anigoo ku hadlaya afka xisbiga, afka gudoomiyaha, afka laamaha dibadda, afka taageerayaasha, afka fulinta xisbiga, waxaan si kaliya laaba u hambalyeeyaa shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dareenka dadnimada san ku dheehan yahay kaga falceliyay weerarka qaawan ee jiritaankooda iyo midnimadooda ummadeed lagu soo qaaday. fashilka xukuumadeed ee kulmiya dalka uu baday iyo falcelintooda waxaan ummadda ugu hambalyeenaynaa aragtida saliimka ay qaateen. waxaanan ugu baaqaynaa midnimadooda, wadajirkooda, qarannimadooda, sharaftooda, calankooda, haybadooda intaba inay ilaashadaan. mar labaad siduu sheegay gudoomiyaha golaha guurtidu waxa loo dhag raaricinayaa inuu labada aqal la hadlo madaxweyne Muuse Biixi. bulshada ku dhaqan caasimaddu waxaan ugu baaqaynaa inay sida gudoomiyuhu sheegay u dhag raariciyaan oo ballankeenu noqdo Britoola iyo baarlamaanka iyo wixii ka soo baxa madaxweyne Biixi. fariinta xisbigu faraya baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudanayaal iyo marweyn waxay duntihiin mudanayaal ka wakiila shacabka Soomaaliland. marka la idin leeyahay wakiilaad tihiin waxay wakiil ka tihiin dadka aan codkoodu meel dheer ku dhacay. waxay kuraasta ku fadhidaan codka shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland. madasha baarlamaanku ma aha madal masraxiyadeed ee waa madal masiir ummadeed aad ku matalaysaan. waxaanu ka digaynaa Britoola sawaxan iyo sacab sidii caadada u ahayd sawirka baarlamaanka gudihiisa inay dhacdo. dareen taa ka duwan inuu Britoola yimaado baanu ugu baaqaynaa xubnaha golaha baarlamaanka ku jira oo su'aalo ku tacalluqa masiirka qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ay madaxweyne Muuse Biixi dadka iyo dalka hortiisa ay ku weydiiyaan. gudoomiyaha xisbigu wuxuu joogay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. wuxuu u tagay dana isaga u gaar ah. wax ogaala uu ka qabay ma jirin kulankii dhex maray Farmaajo iyo madaxweyne Biixi. waxay ahayd wax ku kooban qofof qarankuna inay qofof ka taliyaan masiirkiisa waa wax ka weyn.
labada xisbi qaran wax tala oo ay xukuumaddu soo gelisay ma jirto haba yaraatay meel xukuumaddu ay kula tashatay ma jirto golayaasha sharci dejinta ama baarlamankana meel ay kula tashatay ma jirto waxaanu xisbi ahaan iska bari yeelaynaa oo ka bari yeelaynaa guddoomiyaha iyaga iyo xisbiguba inaanu wax allaaliyo wuxuu ka ogaa falalkaa foosha xun ee qaranka soo wajahay aynasan jirin xisbigu waxaa ka soo bixi doona go-aan weyn oo loo dheg taagayo waxaana go-aanka sheegi doona guddoomiyaha xisbiga insha allah biidni illaahi baari ballankeenu